dadka Soomaaliyeed goormay qaan gaarayaan siyaasiga Soomaaliga goor muqaan gaaraya odayga Soomaaliyeed goor muqaan gaara qof kasta oo kala qaybinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masaalix ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegaan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadow Soomaaliyeed waa cadow hadaan maqasho waa ka wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riixukum hadii la khilaafo oo waxaan micno lahayn la isku wada khilaafo sidoo Ilaahay sheegay waad iskhilaaftaan oo inta meel aado marka ugu dambaysa fatafshalu waad fashilmaysaan Ilaahay awoodiinuna way tagaysaa khalaas baad noqon horay baan u soo maray 100 jeer baan iskhilaafnay 100 jeer baan soo fashilanay 100 jeer bay awoodeenu tagtay 100 jeer buu cadawguna qabsaday haddana ma ku sii wadayna ma la sii waday waxa soo ma istaagto dadka Soomaaliyeed goormay qaan gaarayaan siyaasiga Soomaaliga goor muqaan gaaraya odayga Soomaaliyeed goor muqaan gaara goorma la qaan gaara ma marka adduunka la rabo dadka Soomaaliyeed waa in ay qaan gaaraan waa inay wax fahmaan waa inay wax ku hareeraysan fahmaan qof kasta oo kala qaybinaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo qabyaalad ku kala qaybinaya oo masaalix ku kala qaybinaya oo gobol ku kala qaybinaya oo deegaan ku kala qaybinaya qofkaasi waa cadow Soomaaliyeed waa cadow hadaan maqasho waa ka qof kasta oo dadka Soomaaliyeed midaynaya oo isu keenaya oo waxay wada leeyihiin ka wada shaqaynaya oo dadka isu soo kaxaynaya oo walaalaynaya qofka waa qofka Soomaaliga ee xalaasha ee saxdaana waa kaas shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka inay kala bartaan waxaan ugu baaqayaa inay aqliyeystaan waxaan ugu baaqayaa in la isku dirin